waqooyiga magaalada London waxaa ka dhacday xaflad si weyn loo soo agaasimay isla markaasna lagu dhaarinayo madaxweyne cusub oo yeelanayo maamulka Awdal State. madaxweynahani ayaa waxaa lagu dhaariyay goobtaas isla markaasna ka soo qayb galeen dad ka soo jeeda jaaliyada gobolkaasi. waxay noo qayb galay wariyahayaga Saadaq Cabdi Gombe oo warbixintani eegaya. xafladan ayaa ahayd mid dad badan ay soo camireen iyadoo dadku ay ka muuqdeen farxad iyo reereen isla markaasna goobtu ay ahayd goob aad loo soo qurxiyay oo lagu xardhay calanka maamul goboleedka Awdal State iyo waliba kan Soomaaliya oo ay dadku si weyn u ruxayeen. waxaana indhaha uga qabanayeen gabdho Soomaaliyeed oo ku labisan labiska calankaasi Awdal State oo ay soo bandhigayeen hadba sida markaasi xafladu u socotay. waxaana goobtaasi lagu dhaariyay madaxweynaha maamul goboleedka Awdal State Rashid Awnuur Xirsi iyo waliba madaxweyne ku-xigeenka oo ah Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed. waxaana halkaasi laga soo jeediyay khudbado kala duwan oo dhammaantoodba taabanaysay ujeedooyinka kala duwan ee Awdal State loo asaasay iyo waliba waxa ay tahay gobolkaasi Awdal State. waxaa sidoo kale meesha aan ka marnay bahda fanka iyo suugaanta iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay heeso aad u qurux badan oo lagu amaanayay Awdal State. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi khudbad dheer ka jeediyay madaxweynaha Awdal State Rashid Awnuur Xirsi oo ka hadlay ujeedooyinkii ka dambeeyay asaaska maamul goboleedkan iyo waxay hiigsanayaan. iyo ciidan aynu ugu ciidayno gooni isku taaga maamul goboleedka Awdal State. waxaan halkan mahad ballaaran uga soo jeedinayaa dhammaan dadweynaha ama ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba. sidoo kale waxaan salaan iyo hambalyo u soo gudbinayaa dhammaan dadweynaha reer Awdal State ee ku nool dunida dacaladooda. waxaa kaloon hambalyo iyo mahadnaq ballaaran aan u soo jeedinayaa shacbiyada reer Awdal State ee codkoogii siiyey si dimuqraadiyadda ku salaysan oo aan ku soo baxay in la idmo in aan noqdo madaxweynihii ugu horeeyay ee maamul goboleedka Awdal State. Awdal State ha noolaato. waxaa kaloo halkan mahad ballaaran uga celinayaa marwadeyda ama xaaskayga oo aan caawa ayaan halkan u yeelan iyadoo ku nool dalka Canada iyadoo ii saashay inaan ka qayb qaato habsami u socodka maamul goboleedka Awdal State isla markaana ii saashay inaan u soo boqolo dalka Ingiriiska oo aan ku tartamo jagada madaxweynenimo ee maamul goboleedka Awdal State. waxaa kale oo halkan aan mahadnaq uga gudbinayaa carruurtayda oo kale ah Maryan Rashid Xirsi, Xergeeya Rashid Xirsi, Xirsi, Faaduma Xirsi, Kaamil Xirsi. waxaan filayaa inay dhegaysanayaan. haddii walaal waxaa kaloo halkan aan hambalyo bogaani uga gudbinayaa dhammaan marti sharafta kala duwan ee rayidka ah. waxaa kaloo halkan hambalyo iyo bogaadin uga gudbinayaa dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay xafladan lagu xusayo Awdal State madaxweynaheedii iyo jiritaankeedii labadaba. haddii aan hore uga sii gudbo halkan waxaan ka hadlayaa dhowr qodob inkastoo waqtigu aad inoogu yar yahay oo aan loo baahan yahay waqtiga inaan soo koobo. waxaan halkan odhan lahaa Awdal State siday ku dhalatay inaan wax ka taataabto iyo waxyaabihii keenay. markay wax dhashaan waxaa jira wax ka dambeeya oo keenay waxaas inay dhashaan. markaas sababihii dhaliyay Awdal State aad bay u tiro badan yihiin wax la soo koobi karo walaalayaal ma aha. balse haddii aan carabka ku jiido qaar ka mid ah waxaa ka mid ah hoos u dhicii ku yimiday dhaqaalaha shacabka reer Awdal State. waxaa kaloo ka mid ah
awdal state ma laha dekado ay wax ka dhoofiyaan ay kana soo dejiyaan taa lafteedu waxay keentay inay abuuranto awdal state si loo helo dekado iyagu ay leeyihiin maadaama xeebta ugu dheer ee gobollada Soomaaliya ay ku taalo maamul goboleedka awdal state welina aan looga faa'iideysan in dekad laga abuuro waxna laga dejiyo waxna laga dhoofiyo sidoo kale awdal state xaqiiqatan ma laha wax madaar ah oo diyaaraduhu ay ka haadaan ama ay ka soo degaan taa lafteedu waxay ka mid tahay waxyaabaha keenay baahida keentay awdal state inay dhalato si looga gudbo marxaladda caynkaas oo kale ah sidoo kale gobolku ma laha jidad hufan oo isku xidha magaalo ilaa magaalo kale sidoo kale waxaa dhacay in ay ku timiday curyaamin dhinaca dhaqaalaha waxaa jirtay hay'ado caalami ah iyo kuwo samafal ah oo gobolka ka shaqayn jiray hase yeeshee si sharci darro ah oo aan sharciga waafaqsanayn looga wareejiyey loona geeyey gobollo kale waxaa kaloo dhacday in hantida maguurtada ay ku dhacday qiimo jab kadib markii shaqo la'aantii ay badatay oo ay dadku awoodi kari waayeen in ay sameeyaan ama exercise badan ay ku sameeyaan ganacsiga ama magaranaysa wax kala gadashada gudahooda qodobkayga labaad waxaan odhan lahaa waxaa soo food saaray dadka reer awdal arrimo la xidhiidha dhinaca siyaasadda hoggaanka siyaasadda oo aan ku jirin gacmaha bulshada awdal state ayaa keentay awdal state inay yeelato siyaasad iyada u gaar ah oo shacbiga reer awdal iyagu rabitaankooga ay ku muujiyaan iyagoo aan cid kale aan isku daba taagin walaalayaal sidoo kale kadib markii ay adkaatay in la ansixiyo marka baahi ka jirta gobolka awdal la soo hordhigo mooshinka baarlamanka taa lafteedu way adkaatay gobolkii inuu horumar u sameeyo marka gobolku suu isagu iskugu tashado waa inuu leeyahay maamul isaga u gaar ah oo shacbigiisu si toosa ugu madax bannaanaya waxqabadkiisa sidoo kale xagga amniga waxaynu wada ogsoonahay Soomaaliya 20 sano u dambaysay inaanu ka jirin waxa la yiraahdo law and order haddii la waayo sharci iyo kala dambayn aadamuhu ma jirayo mana noolaan karayo marka sidaa darteed markii ay la arkay ay dhacday in muwaadiniin badan oo reer awdal state ah si xaq darro ah loogu dhibaateeyey waxay maamul goboleedka awdal state ku abuurantay inay dadkooga dib ugu soo celiso sharcigii iyo kala dambayntii si gobolku u sameeyo horumar nololeed oo uu hiigsado uu kagana qayb qaato dhismaha iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dunida caalamka labadaba waxaa kaloo jirta waqtiyadan dambe in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku nooshayba tirada dadku way bateen halka lafteeda isriix badan ayaa ka dhacay marka dadka reer awdal laftooda waxa ku yimiday waxa la yiraahdo dhul beesiga ama dhul boobka dhulku waa wax aad u qaali ah gobolka awdal taariikh ahaan wuxuu ka mid yahay gobolka koowaad ee ugu khayraadka badan leh Soomaaliya gobolka labaad waxa uu ku yaalaa koonfurta Soomaaliya waa Bay iyo Bakool sababaha kale ee keenay in ay dhalato maamul goboleedka awdal state waxa weeye shaqo la'aanta gobolka awdal ku dhacday gobolka awdal jaamacado badan baa ku yaala arday badan baa ka soo baxda dugsiyo sare ayaa ku yaala kuwa dhexe ayaa ku yaala kuwa hoose ayaa ku yaala waxaynu wada ogsoonahay awdal ama shacabka reer awdal waxa ugu badan ay dhoofiyaan waa aqoon weeye aqoon dibadda ayaan u dhoofinaa annaga la nooma soo dhoofiya aqoonta marka taa lafteedu
markii ay dhacday in dhalinyaro fara badan oo jaamacadaha ka soo baxda ay dib ugu noqdaan guryahoogii oo ay waayaan inay shaqo helaan oo ay ku shaqaystaan xirfadii ay soo barteen taa lafteedu waxay keentay dareen ah in dhalinyaradii gudaha joogtay ee kuwa dibadda joogay ay kulmaan ay iswaraystaan ay isweydiiyaan dadkii shacabka reer awdal maxaa maanta u dana dantiina waxay noqotay in shacabka reer awdal ay yeeshaan maamul siyaasadeed oo iyaga gacantooda ku jira oo loogu magacaabo maamul goboleedka Awdal State ee maanta aan madaxweynaha u hay walaalayaal haddii intaan kaga gudbo walaalayaal maanta iyo Awdal State baa laga hadlayaa anigoo soo koobaya Awdal State iyo maanta waxa ay doonayso waxyaabihii aan ka soo hadlay oo dhan baa la rabaa mid inay u xalliso iyo inta kale ee aanan carabka ku jirin markaa walaalayaal aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida sharafta iyo qiimaha leh ee aad ii dhegaysateen tala soo jeedin baan halkan ka soo jeedinayaa mid waxaan u soo jeedinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto midna waxaan u soo jeedinayaa shacabka dadka reer Awdal midda looga baahan yahay ummadda Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay ummaddu karaamo ma yeelato ismana maqasho waxna ma kororsan karto horana uma mari karto dulliga iyo dhibaatada maanta lagu jirana lama bixi karo haddii aan la ilaalin cadaaladdu waa shayga ugu muhiimsan nolosha qofka aadamiga cadaaladda markaad hesho waxay noqonaysaa in nabadii ay kor u kacdo in isjacaylka ummaddu ay kor u kacdo in ay nabadgelyadii ay kor u kacdo in wax waliba ay wanaagsanaadaan oo ay samaadaan cadaaladdu markaa maxay tahay weeyi cadaaladdu ama justice-ka waxa la yidhahdaa muxuu noqonayaa cadaaladdu waxa weeyi xaqa adigu aad leedahay marka laguu siiyo si buuxda oo dhammaystiran isla markaana aad ku faraxdo taas weeyi cadaaladda laynoo sheegayaa taa wey walaalayaal waxaa kaloo ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda ku meel gaarka ururada Soomaalida meel kasta ay joogaanba waxaan u sheegayaa maamul goboleedka Awdal State oo aniga la ii idmaday si dimuqraadiyadda ku salaysan in wax allaala wixii heshiis ah ee gobolada waqooyiga Soomaaliya laga gelayo haddii aanay Awdal State aanay dhinac ka ahayn oo aanay saxiixin waxaan idiin sheegayaa waa heshiiskaasi inuu yahay invalid aanu waxba ka jirin ummadda Soomaaliyeed ha iska arsiiso meel kasta